Iran ayaa dib u furtay goobaha lagu cibaadeysto kadib muddo 2 bilood ay xayirnaayeen goobaha lagu cibaadeysto. Dadka cibaadeysanaya ayaa loo fasaxay inay gudaha u galaan, balse waxa lagu amray inay afka iyo sanka xidhaan, qaataan amaamirta ka soo baxaysa wasaaraddaasi horumarinta caafimaadka una hoggaansamaan sharciga kala fogaanshaha bulshada iyo si loo yareeyo cudurka neef-abaarka ee COVID-19. Dadka ayaa laga baaray heerkulka jirkooda ka hor intaanaysan gelin goobaha lagu cibaadeysto. Iran ayaa ka mid ah dalalka uu sida weyn saameeyay caabuqa COVID-19 kiisaska laga xaqiijinay marayaan 1.37 kiis iyo 7.450 ay marayso dhimashada dalkaasi. Isbuucii la soo dhaafay dawladdaasi waxay bilowday inay khafiifiso xayiraadaha saaran dalkaas, dhaqaale ahaan dib loo soo nooleeyo. Sanad waliba waxa xarumaha booqda 10 milyan oo qof oo muslimiin Shiica ah. Xamse Tabare, Telefishinka Star.